Asalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaad naga daawanaysaan YouTube-ka adinkoo adeegsanaya internetka. Dabcan, internetka hadduusan jiri lahayn ma aan awoodeen inaad naga daawataan YouTube-ka. Laakiin wax walba internetka ayaa fududeeyay. Internetku waa wax uusan qof casrigan nool uusan marnaba ka maarmayn, iyada oo sidoo kale dad badan ay lacag ka sameeyaan internetka, weliba ayagoo gurigooda jooga. Daawade, ma ogtahay inay jiraan urur lagu magacaabo The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, oo loo soo gaabiyo ICANN, laguna tiriyo inay yihiin ururka keliya awoodda u leh inay damiyaan ama ay beddelaan nidaamka internetka iyagoo aan wax fasax ka haysan dowladaha. Kusoo dhawaada saaxiibayaal xalqadeena maanta oo aan ku soo qaadanayno 7 nin ee awoodda u leh inay damiyaan internetka. Ka soo qaad daawade, maalin maalmaha ka mid ah adigoo internetka xogtii kugu jirtay fiirin raba ayaad hal mar ka war heshay xogtaadii oo mar hore hawada ka baxday. Sidee ayay noqon lahayd xaaladaada? Balse daawade, ma dhacayso midaas. Maxaa yeelay sidii aan hore kugu sheegayba, waxaa jira urur lagu magacaabo The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, oo loo soo gaabiyo ICANN, ahna urur maalinba maalinka kasii dambeysa u ilaaliya xogtaada ama dhaatadaada sidii cunug uur ku jiraha oo kale. Waana urur non-profit ah ama urur aan wax lacag ka samayn shaqada ay qabtaan. Ururkan waxay 7 fure u dhiibeen 7 shaqsi oo ka soo jeedaan dalal kala duwan. 7daas fure waa kuwo gaar ah. Haddii aad heshana waxaad awood u yeelanaysaa inaad internetka damiso. 7 nin ee gacanta ku haya furayaasha waxaa lagu sheegaa inay yihiin dadka ugu awoodda badan adduunka maadaama ay maamulaan internetka, balse taasi maaha xaqiiqada. 7dan shaqsi waa kuwo aan hayn wax xil ah sida xilka madaxweynenimo oo kale ama hogaamiye, oo waa dad iska caadi ah, mana aha dadka awood badan dadka kale ee caadiga ah. Application kasta, website kasta iyo sidoo kale kombiyuutar walba waxa ay leeyihiin wax lagu magacaabo IP address. Sidaas si la mid ahna internetku waxa uu leeyahay IP address. Dabcan, IP address waa nambaro aad u fara badan, wuxuuna IP addresska u kala baxaa 2 qaybood, mid public ah iyo mid private ah. Midka public ah qof walba ayaa ogaan kara, balse midka private-ka ah waa mid uusan qof walba ogaan karin. Marka IP addresska internetka waxaa lagu keydiyaa sanduuq lagu magacaabo Hardware Secure Modules, oo la soo gaabiyo HSM, ahna sanduuq la taaban karo lana arki karo. Waana 2 sanduuq oo yaala 2 goobood oo kala duwan. Haddii la jabso sanduuqyadaas, bum, xogtaadii oo dhan waa u dhammaatay. Laakiin sanduuqyadaas waa kuwo si heer sare ah loo ilaaliyo, balaayin doorna lagu bixiyo si loo ilaaliyo. Sanduuqyadan waxaa lagu furaa furayaal ay gacanta ku hayaan 7 shaqsi, waxayna 7daas shaqsi kale yihiin Paul Kane oo u dhashay boqortooyada Ingiriiska, Dan Kaminsky oo u dhashay dalka Mareykanka, Jian Kang Yao oo isagana ka soo jeedo dalka China, Musa Gubri oo ka soo jeedo Burkina Faso, Bevel Wooden oo u dhashay dalka Trinidad, Andres Suri oo u dhashay Czech Republic, iyo Noam Ritchie oo isagana ka soo jeedo dalka Canada. Haddaba daawade, 7daas shaqsi ayaa ah kuwo gacanta ku haya furayaasha sanduuqa internetka ee loo yaqaan Hardware Secure Module ama HSM. Daawade, haddii aad adiga gacanta ku hayn lahayd furayaashaas, maxaad samayn lahayd? Lana wadaag aragtidaada ku aadan muuqaalkan. Haddii aad ka heshayna muuqaalka, fadlan like saar, sidoo kale nagu dhiirigeli adigoo channelka subscribe saaraya. Mahadsanid. Intaan ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.